qofka lama dhihi karo maxbuus asoo loo sharxin dhaqanka halkan ka jira. Taasi waxay noo fududaynaysaa dhibka meeshan ka jira inaan ka fogaano. Dhibaatadu kama dhigayso nolosha maxbuuska cusub kaliya, balse waxaa macquul ah inuu halkan noloshiisa ku waayo. Carlos waxaa loo sii wadaa maamulaha xabsiga. Kani ma mid cusubba? Haa maamule. Magacaada noo sheeg. Justo Carlos Augusto Mejia. Halkani idhagayso. Halkan dhaqanka ka jira waa sidaan. Wax dhibaato kuma samayn kartid, mana dhaqdhaqaaqi kartid. Meeshan dhanka kale waxaa ka jira oo muhiim ah maamulka maxbuuska. Maamulayaasha maxaabiista dejinaya halkuu qofka degi lahaa. Laakiin arrinka kale oo muhiimka halkan ka jira ayaa ah ixtiraamka. San Pedro waxaa loo qaybiyaa 8 qaybood. Maamulayaasha meeshan waxay dejinayaan halkii aad degi lahayd aad ku noolaan lahayd. Laakiin waxaa macquul ah inaad mararka qaar weyso halkaad degi lahayd. Meel waliba nidaam gooni ah ayay leedahay 8daas qaybood. Carlos waxa uu haystay ayuu soo aruuriyay sida ugu noolaado. Jiifka iyo cuntada adaa halkan ka dhacsanayo. Laakiin waxaa zaid ugu cabsanayaa su'aalaha la hordhigi doono. Waxaa la qorayaa da'diisa, magaciisa iyo dembiga uu galay. Isla markaa ayaana halkaa lagu xukumayaa. Maamulku wuxuu amar ku bixinayaa in la qabto. Carlos ma oga waxa ku dhici doono. Maalmo kadib waxaan aragnay Master Carlos oo dhibaato xooggan loo geystay. Jirdil xooggan ayaa ka muuqday. Lugaha Carlos ayaa aad u diirdiirnay. Laakiin ma naqaano waxa ku dhacay. Wuxuu noo diiday inuu waraysina siiyo Master Carlos. Jirdilkaas ku dhacay ma naqaano sababtuu u dhacay, mana ogaan karo qof San Pedro banaankiisa jooga. Waxaa laga yaabaa amase uu yahay xabsiga ugu dhibka badan ee dunida la gala. San Pedro waxaa derbiyada xabsigan ku xardhan qof waliba nin aan wax arkin waxba ma garanayo. Waxyaalaha San Pedro derbiyadiisa ku xardhan ayay ka mid yihiin fadlan ka fogaada albaabka. Christian Saqenis halkan ayuu ka shaqeeyaa. Master Saqenis 8 sano ayuu San Pedro hogaaminayay ama xukumayay. Wuxuu ka mid yahay Christian Saqenis maamulayaasha halkaani. Waxaana la soo gaarsiiyaa xabsiga gudihiisu in ay dhibaato ka jirto. Waa siduu Christian Saqenis noo sheegay. Annaga wax awood ah awoodda halkan ka jirto waa annaga kaliya. Inaan xabsigan maamulo ani ahaan Christian Saqenis aad bay u dhib badan tahay. Muddo 8 sano ayaa halkan ka shaqaynayay. Dad aad u tiro badan ayaa halkaani laga casilay. Runtii waa shaqo aad u dhib badan. Mararka qaar markii lagu jiro xaaladaha degdega aad ayay noogu dhib badan tahay Christian Saqenis ahaan. Dhacdooyinka meeshan ka dhacay waxaa ugu dhibaato badneed in ay maxaabiista gudihiisu xabsiga ay gubeen, taasoo dhibaato xooggan ka dhacday. Laakiin wuxuu xabsiga San Pedro xabsiyada kale kaga duwan yahay inuu meesha magaalo ay tahay, aysan hal guri ahayn, taasoo mararka qaarkeeda la xallin karo. Laakiin dhibaatada jirta ayaa ah inay askarta bannaanka joogaan ay gudaha u geli karin. Indhaha kor ayaa laga eegaa waxa San Pedro gudihiisa ka socda. Xabsigaani wuxuu aasaasan yahay muddo xilli aad u dheer. Laakiin hadda xilligan lagu jiro aad ayay u adag tahay. Waani ahaan Christian waxaan aaminsanahay halkaani waxa ka jiro in ay dhammaan karaan, si dhib badan ay ku dhammaan karaan. Xaaladaha degdega markii lagu jiro inaan xallin aad ayay noo dhibtaa, wayna nagu adag tahay. Christian Saqenis ayaa sidaa ku nuuxnuuxsaday. Valentine Manero
wuxuu ka mid yahay maamulayaasha halkan, waxayna ku naanaysaan boqorka xabsiga. wuxuu ku xigaa Dr. Hugo Mendes. waxaa mararka qaar lagu eedeeyay Valentine Monero inuu halkan soo geliyey dhibaato oo ah inuu soo geliyey daraagis. Dr. Hugo Mendes waa maamulaha halkan. ninkan u jeedaan waa Valentine Monero, wuxuuna la shaqeeyaa Dr. Hugo Mendes. hogaamiyaasha halkan waxay dadaal ugu jiraan inay halkan xaliyaan, waxayna dalbadaan lacag aad u xoogan. mararka u badnaa lacag dalbadeen $1 milyan Mareykanka ayay dalbadeen. waxaa lagu eedeeyey dadka meeshaan maamulo inay daraagiska halkan soo gala ay aad u soo geliyaan. runtii halkan wax weliba u imaan. daroogada meeshaan aad ayaa looga isticmaalaa. daroogada la kala isticmaalo waxaa ka mid ah cocaine-ka Boston Baziga. cocaine Boston Baziga waa daroogo aad u xun oo halkan laga isticmaalo, waxayna ku soo gashaa si sanadla ah. meeshaan gudaheedu aad ayay u dhib badan tahay, wax gudaha u gali kara ma jiro. dadka ayaa isticmaala daroogadaasi iyo daroogooyin kala duwan. Boston Baziga Karina waa daroogo aad ay u isticmaalaan. Montenero waxa uu sheegay naftigiisu inuu guri baaxad weyn uu leeyahay, uuna halkan ka tacbaday, wuxuuna ka mid yahay maamulayaasha halkan maamulo. runtii masaaxada meeshaan aad ayay u ballaaran tahay, laakiin nolosha maxaabiistu ayaa aad u adag. waxaa mararka macquul ah inay maxaabiista islaayaan, gudahana loogu geli karin. waa arrin aad u kulul oona la xallin karin. ugu yaraan 8,800 maxaabuus ayaa ku dhimatay sanawaadkii lasoo dhaafay San Pedro, waana xabsiga ugu dhibka badan halkaani. waa xabsi magaalo gudaheeda ku dhex taala. waa xabsiga ugu cajiibsan ee dhismaha ugu cajiibsan dunida. San Pedro waa xabsi magaalo gudihiisa. dadka maxaabiistu daroogada aad ayay u isticmaalaan, waxayna sheegaan inay awoodda qofka u xoojinayso. qofkan meesha soo gala wuxuu ku qasban yahay daroogada Boston Baziga cocaine Karina inay isticmaalaan, taasoo qofka maxbuuska u zaa'idinaysa awooddiisa. waxayna ku qasban yihiin isticmaalka baashaan inay ka helaan xoojin dhanka awoodda ah. waayo halkan waxaa ka jira isdildil aad u xoogan. daroogadaas markay isticmaalaan oo muuqaalkooda ayaa bedelmaayo, waxayna marka qaar ay ku qasban yihiin inay ayaga tuuray isgeliyaan. wax kale celinaya ma lahan oo waa la isku fiirsanaa. San Pedro waa magaalo aad u weyn, laakiin xabsiga gudihiisa ku yaala ayaa magaalo kale ka daran. waa xabsiga ugu khatarsan dunida la galo, oo qofkii San Pedro looga yeero dardaaran iyo warqad, haweenaydiisana wuu iska dalaaqaa. runtii San Pedro qofkii gala gudihiisu aad ayay u dhib badan tahay. maxaabiistu gudaha ayay daadsan yihiin, waxayna aad u isticmaaleen daroogadaas. magaalada markii la eego San Pedro way iska camiran tahay, oo dadka si raxan ayay u socdaan, howlahooda adduunyo ayay dhacsanayaan. laakiin San Pedro waxa si sanadla u soo geliya daraagiskaas waa ganacsada weyn ee dunida ka mid ah, waana meesha ugu isticmaalka badan cocaine-ka Boston Baziga oo daroogadaas noocaas loo yaqaana. San Pedro waa mid aad u dhib badan maxaabiista. Javier Blanco waa 38 sano jir. waxa uu ka soo jeedaa tuulo yar oo ku taala Isbayn. San Pedro ayuu muddo badan ku xiran yahay. waxaa lagu eedeeyey arrimo la xiriira ganacsiga daroogada. kaliya maahan ajnabiga kaliya ee San Pedro ku sugan. waxaa suurtagal ah in lagugu xiro darooga arrimo la xiriira markaad joogto dhulkan. aniga waxaa la igu eedeeyey in aan daroogada kala gudbiyo. waxaa la igu qabtay garoonka, laakiin dad ayaa boorsadayda ii geliyey. maxkamadda waan ka hor caddeeyey, balse wax dhegaysta oo dhag jalaq ii siiyey ayaan waayey. laakiin waxaa muhiim ah qofka eedaysanaha in uu arrinkiisa ka jeediyo, micnaheedu diidmo ama ogolaansho uu halkaa ka jeediyo markii dembiga lagugu soo jeediyo.
halkan dembiyada ka dhaca aad ayay u tiro badan yihiin. Daroogada in la kala gudbiyo San Pedro waa wax aad u fudud. Kelinimada waxay dhaantaa saaxiibka xun. Muddo badan ayaan keligay halkan ku noolahay, qofna uma baahni ani ahaan. Cid nafsadeyda ayaan aaminsanahay, cid kaloo aan aaminsanahay ma jirto balonga ahaan. Si aad halkan ugu noolaato aad ayay u badan tahay, laakiin dhammaan waxay rabaan in ay adiga ku xadaan. Waxay ku leeyihiin saaxiib sidee tahay, laakiin gadaal ayay gacantooda sii socota ayaad arkaysaa. Nafsadeyda cid kale kuma aamino, anaa is aamino. Waxaa kaloo saaxiibkay aan ka dhigtay bahashaas yar aan wato. Dooreydan yarna habeenkii ayaan isku ilaaliyaa, nafsadeyda ayaan ku daafacdaa. Ma bihi aniga balonga ahaan nin bannaanka u baxo oo inta badanaa waqtigayga halkan ayaan ku qaataa. Xilliyada aan baxayana daaqadda ayaan ka boodaa. Waan iska ilaaliyaa tuugada. Halkan aad ayay u tiro badan tahay. Master Balango wuxuu ka dhex shaqaystaa xabsiga gudihiisa, laakiin balonga keli maaha. Dadka halkan ku nool aad bay u tiro badan yihiin. Dadka ajaanibta ah ee San Pedro cadaalad xumada ay ku haysato, xabsigan ciddi soo gashaa in ay nolol uga baxdo aad ayay u dhib badan tahay. Waa xabsi magaalo ah oo gudihiisa aad ku dhex jiri karto muddo badan. Inta badanaa inay maxkamad ku xukunto aad ayay u yartahay, oo dadka daraagiska ka shaqaysta ayaa halkaas maamula. Halkan waxaa ku sugan 300 carruur in ku dhowaad, kuwaasoo halkaanay ku dhibaato xooggan ay ku haysato. Carruurtaas waxay ku dhex nool yihiin dambiilayaasha. halkan hortooda ayay ku ciyaaraan. San Pedro gudihiisa ayaa carruurtan lagu dhalay. runtii dhibaato xooggan ayaa halkan ka jirta. duruufta bannaanku waxay soo doorbiday carruurtan in ay halkan ku noolaadaan. waalidiintooda ayaa halkan ku xiran. mararka qaar gabartii halkan la soo geliyo ayadoo carruur wadatay ka bixi. Mijael Bundusta Ortega iyo gabarteeda Escolara oo jirta 5 bilood halkan ayay ku nool yihiin. maxaa yeelay Mijael Bundusta Ortega ninkeeda Sarsara ayaa halkan lagu xiray muddo badan. Mijael Bundugo waxay ku noolaan weysay bannaanka, oo ciddeeda waxay u soo sheegtay inay fasax aadi doonto. hase ahaatee waxay soo aaday xabsiga San Pedro. maxaa yeelay halkaani waxaa ku xiray ninkeyga, waxayna nolosha ii doorbidi weysay in aan keligay bannaanka ku noolaado. Sarsira waa ninkeyga, aad ayaan u jeclahay. la'aantiis bannaanka inaan ku noolaado aad ayay ii dhibtay. runtii San Pedro xabsigan qolkan yar ayaan deganahay. 40 mitir way nagu filan tahay. aad bay noogu filan tahay. nolosha halkan ka jirta haba iska adkaatee, laakiin inaan ninkeyga agtiisa ku noolaado farxad fiican ayay ii tahay. Mijael Buntiga Ortega ayaa sidaas tiri. gabarteeda Sarsiga waa 5 bilood ayay jirtaa. noloshu halkan ka jirto aniga waxay i doorbiday ninkeyga rabitaankiisa inuu xabsigu galo aan la galo. San Pedro waa mid aad u dhib badan dhanka nolosha. runtii ninkeyga ayaa gudaha xabsiga ka dhex shaqeeya, anigana qolkan kama baxo. mararka qaar waa hubaal inay dad qaar ku soo damcayaan. hase ahaatee halkan aniga dan iyo duruuf ayaa ii keentay. ciddeyda kama ogo, cid i og ma jirta halkan inaan aniga soo aaday. oo ciddeyda waalidiinteeda waxaan u sheegay inaan fasax ijaaso aan ku soo baxay, oo laakiin uma sheegin inaan ninkeyga Sarsira dhankiisa aaday. waa ogahay waayo ninkeyga inuu dambiile yahay oo halkan uu ku xiran yahay. nolosha inaan keligiisna noolaado oo xabsiga kula dhex noolaado ayay danta iyo duruufta i doorbiday. waxba dooq ma lahan qofka halkan soo dego. noloshu halkan ka jirto guryuhu waa lagu doorayaa. keligeed ma aha Mijael, oo waxaa kula nool qoysas kale oo halkan ku nool, kuwaasoo danta iyo duruufta doorbiday. gabdho qaar ayuu halkan lagu soo xiray. waxa uur ay u qaadeen nimanka daraagiska ka shaqaysta oo xabsiga San Pedro ku xiran.
nolosha meeshaan aad bay u dhiban tahay. Ilmuhu mararka qaar daraagiska ayaa wax laga siiyaa. Xilliga halkaan aad joogtid waa wax aad noloshaada ugu dhib badan. Dadkaan muddo badan ayay halkaan ku xiran yihiin. Waxaa inta badanaa awoodda sare iska leh dadka halkaan maamulo. Waa soon ku gudbinayna askarta, isla markaas kuwa xabsiga maamulo ayaana xukunkaada soo yeerina. Dadka ajaanibta halkaan ku nool aad ayay u dhibban yihiin oo dhibaato xooggan ayay ku qabaan, oo aad ayaa loo jirdilaa. Dhibaato xooggan ayaa halkaan ka jirta. Mararka qaar dadka qaar waxay ka shaqaystaan weriynimo ayagoo ka soo gudbiya akhbaaro kale wariyaasha, oo waxayna u keenaan dadka xabsiyada ku jira isla xabsiga San Pedro gudihiisa ninkaan oo kale. War cusub ayaa idin hayaa. Ninkaan nin la mid waxay diraan warbixino, waxayna akhbaarta la wadaagaan dadka xirxiran, kuwaasoo sugayo in la soo booqdo. Mana ahan shaqo fudud in muddo San Pedro arrimo noocaan oo kale ah laga shaqeeyo. Kaaga daran lacag fiican kuma qaataan. Ugu yaraan waxay maalintii cunaan ayay ka helaan. Laga yaabee mararka qaar inay nafsadooda ku waayaan. Maalin waliba Majaa'ir Sarsaar waxa uu soo booqdaa xaaskiisa. Maalku waxa uu xukumaa nolosha. Halkaan markaan imaanayay waxaan watay 100 beeso. Maalintii saddexaad iima harin ilaa 90. Sarsaar waxaa caawiya qolooyinka owsiyada, waxayna siiyaan lacag gaarayso $100. Marka la siiyana xaaskiisa Majaa'ir Sarsaar ama Majaa'ir Ortiga ayuu la wadaagaa, kadibna root ayay ku samaysaa, wayna ganacsi geeyaan. Meeshaan aad ayay u khatar badan tahay. Ma awoodi inaan gamo. Dhibaatadu aad ayay u badan tahay xilliga fasaxa ama xilliga lagu jiro ciida Karnavalka. Maalinta ugu dambayso dabaaldega Karnavaalku aad ayay u adag tahay. Ma jiro ruux kugu ixtiraamaya in aad haysato cunug yar. Waxayna igu soo weerareen toorey. Sidaaba ha ahaatee, anigu waxaan watay gabarteedii yar. Ma awoodin inaan iska difaaco. Waxaan uga cararay dhanka iyo albaabka, laakiin hase yeeshee halkaa cidna maysan joogin, wax ciidan iyo wax ilaalaba. Waxaan u dacwooday askarta, waxayna dacwadeeda gaarsiiyeen owsiyada. Hase ahaatee qolooyinka owsiyada ama ilaaliyaasha korjoogayaasha aniga ayay i garaaceen. Halkaa markaad joogto in aad askarta u dacwooto ma habboono. Valentino wuxuu ka mid yahay kuwa horjoogayaasha, waana kan soo saaray arrinta Sarsaar in aysan run ahayn. Marka lagu jiro xafladda Karnavaalka waxaa dhaco wax badan, waxaanan bixinaa juhdigeena kan ugu fiican. Dhammaan dhibaatooyin ayay noo soo gudbiyaan. Hase ahaatee kuwaas waxay habboon tahay in laga fiirsado marka ay khamrada cabaan. Runtii waxaa aad u dhaco isku dhac imaansho ah, taasoo mararka qaar keenayso in ay isweeraraan. Waana dhibaato aanan laga gaban karin. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa ah ama ugu dhibaatada badan tan la xiriirta jirdilka loo geystay dadka ajaanibta. Toos ayuu Valentino arrintaasi noogu sheegay. Halkan waxaad aragtaa barkad biyo ku jiro. Waxaa lagu ciqaabaa dadka ajaanibta iyo kuwa kale. Waa la garaacaa, madaxa ayaana biyaha loo geliyaa. Maalinta waa biyo carruurta ku ciyaaraan. Hase ahaatee habeenkii halkaan waa meel dadka dhiigooda lagu daadiyana lagu ciqaabo. Subaxi waaga markuu baryo halkaani waxaa laga qaadaa 6 dhimasho ah ama 5 dhimasho oo meyd ah. Lama yaqaana cid dishay. Waxaana intaa dhibaatada geysay dadka owsiyada. Dadka ajaanibta shaqooyinka ugu liita ayay halkaan ka shaqeeyaan, sida inay baradhada jaraan. San Pedro dhulkeeda ugu weyn ee magaalada xabsigan inay
waaga markuu bari ilaa ay xaaqaan iyo maqribka laga gaaro. Master Sanchez waxa uu dilay ama waxa uu soo afduubtay 6 gabdhood kadib markuu soo gaaray San Pedro. Master Ricardo Sanchez waa la garaacay aad ayaana loo dirjilay. Kadib Ricardo Sanchez maalintaa laga bilaabo cid lama hadlo. Waaga marka uu baryo xaaqinku qaata wuu ku maqribaystaa ilaa maqribkii ayuu shaqada ku hay kaaga daran hal lacag kuma qaato.